السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو مقعقة وعبد القادر أبو بكر. هالكان waa Creative Som. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى هدو كرالي نقضو كورس كان واحد كبران دونتا Premiere Pro مدو 45 دقيقة so شا حاجة هرو سو قادو سيد أولسو دكتو سوفتويركا waxaad furanaysaa Chrome-kaaga ama any browser aad isticmaalayso deetana meesha kore ayaa waxaad ku qoraysaa get into PC. markuu sidan kugu soo muuqdo website-ka qaybtan searching bar-ka ayaad ku dhufanaysaa deetana waxaad ku qoraysaa Premiere Pro. waa search garaynaysaa kadibna waxaa ku soo bixi doono Premiere Pro kala duwan haday noqoto Linux haday noqoto Mac ama haduu yahay Windows ba waxaad iska fiirinaysaa kaad soo degsanayso so midkan ugu koreeyo oo ah kii ugu dambeeyay Premiere Pro ahna mid lagu talgalay Windows ayaan soo degsan doonaa. waxaad ku garan doontaa midkii Mac ah hoos ay kugu soo qor doonaa waa Mac midkii Windows ahna waa uu ku cadayn doonaa so markaad hoos u soo degto saad ugu jeedib halkan operating system kiisa waa Windows waxaa lagu isticmaali karaa Windows XP Vista 7 8 8.1 10 iyo hadda uu soo baxay 11 so saad ula soo degto waxaad ku dhufan doonaa calaamadan deetana waxaynu xisaabin doontaa tiro ilaa 9 minute 9 second kadibna haduu kugu jiro IDM oo ah Internet Download Manager automatically ay u soo kacaya haduu uunan kugu jirina geeskan ayuu kugu soo xusaya inuu ku soo degayo software-ka. imika waan soo degsanay start ayaan oranayna marka uu ku soo dego software-ka waxaad imaan doontaa meeshaad ku soo degsatay kadibna haddaad isticmaasho WinRAR sidan ay kugu soo muuqan doonaa oo sidan ay kugu soo muuqan doonaa double click ayaan siinayna markaad double click siiso sidan ay kugu soo muuqan doonaa daaqadan waa password gali passwordkiisana waa 123 deetana enter ayaan oranaynaa markuu inoo soo furmo waxaan furaynaa folderka ee qoranta Adobe Premiere Pro 2021 kadibna qaybtan u hooseysay ku qorantahay setup-ka ayaan double click siin doonaa uu extract grace doonaa markuu extract grace si automatically ayaa waxa kugu soo kacayso daaqadan so waxaan ku dhufanaynaa qaybtan continue kadibna waxay ku xirantahay xawaaraha qadkaad isticmaalaysid Premiere Pro waa uu inoo soo degi doonaa waxaan isku soo laaban doonaa markuu install grace markii aad la soo degto software-ka wuxuu kaaga soo muuqan doonaa dhankan waad ku dhufanaysaa si uu kugu soo kaco imika waa uu soo kici doonaa marka uu soo kaco halkan waxaa kaaga muuqan doono barnaamijyadii aad isticmaalaysay kuwii u dambeeyay dhankan waxaa kaga soo muuqan doono xilliyada ugu dambeysay halkan waa size-ka waxyaabaha isticmaalaysid size-kooda saad u furato project cusub waxaan ku dhufanaynaa halkan kadibna waxaan u bixin doonaa magac markaad u bixiso magaca uu yeelo doono project-kaaga kadib halkan oo ah meesha uu ku yaali doono waxyaabaha samaynayso project-kaaga meeshaad ku save garayn doonto ayaa cilaamin doontaa so anaga automatic-giisa ayaan ku daynaynaa kadib halkan waa inay ku ahaataa HDV so waxaan u dhufanaynaa okay markuu ku soo muuqdo application-ka sidan ayuu kugu soo muuqan doonaa software-ka halkan oo ah halkaad kala soo gali doonto waxyaalaha
ku jarjari doonto barnaamijkan, ama aad ku dubi doonto ama ku haweyn doonto. halkan oo ah effect controlyadii iyo sourcegii iyo audio clip masterka meeshaad ku haweyn doonto. ayar kadib ayaad si wanaagsan u fahmi doontaa dhankan oo ah halkay kaga soo muuqan doonaan wax walba aad samayn doontid, oo ah shaashadaad ka daawan lahayd. halkan oo ah meesha ugu badan oo lagu shaqayn doono, oo ah meeshaad wax ku jarjari lahayd, waxna aad ku hagaajin lahayd. so siaad wax ula soo gasho 2 step ayaa kuu banaan, taasoo ah inaad meeshan double click siisi, kadib wuxuu ku geyn doonaa folder, ama waxaad samayn kartaa inaad ku dhufatid right click kadibna import. isla sidii ayuu kuu soo qaban doonaa, wuxuu ku dhihi doonaa aaway waxyaabahan ku hagaajin lahaa. so iminka waxaan ku dhufan doonaa folderkan, kadibna import folder haddaad tiraahdo folderkii ayuu ku qaadayaa. haddaad tiraahdo open wuu ku kala furayaa, waxaad doontay ayaad kala baxaysaa. so anaga waxaan doonaynaa isaga oo idil, waxaan oranaynaa import. halkan oo aad ka helayso tooliska aad wax ku hagaajin lahayd, hadday noqoto qoraalka, hadday noqoto tii gacantii, hadday noqoto paint tool wax la yiraahdo, hadday noqoto sakiintii iyo move toolkaba oo loo yaqaan selection tool. so waxaa dhici karta marmar Premiere Pro ama Adobe barnaamijyadeeda kala duwan waxay ku wanaagsan yihiin, wax walba waxaad ka dhigan kartaa sidaad u baahan tahay. so ilaahay kuma darnaadee haddii kan aad soo qaado aad halkan ku darto, kan aad soo qaado aad halkan ku darto, kan ama wax uu kaa dalaydmo aad doonaysid inaad ku soo ceshato sidii hore, waxaad tagaysaa halkan, waxaad taawanaysaa reset to saved layout. ama haddii aad doonaysid inaad safgaraysata aad ka heshayna waxaad taaban kartaa save as new workspace. so reset ayaan oranaynaa, waad ujeedaa inuu ku laabtay sidii hore. step kale ayaa jira aad ku hagaajin karto haddii ay iska kaa dhex qaldamaan. waxaad tagaysaa window workspace, kadibna hoos ay usoo daadegaysaa, waa isla sidii reset saved layout oo u taagan alt plus shift 0 plus 0. haddaan iraahdo ujeeda isla sidii ayuu kusoo laabtay. so haddaan usoo laabno folderkan la soo galnay, haddaan double click siino waa uu inoo furmi doonaa. waxaa jiro dariiqooyin badan aad ku arki karto waxyaalahan, sida list isagoo ah, iyo isagoo icon view ah, iyo isagoo ah freeform view. so aniga waxaa ku daynaynaa hadde icon view. saad halkan oo ah meesha ugu badan lagu shaqayn doono ama wax lagu hagaajiyo aad wax ula soo gasho, waxaa must be ah inaad samaysato wax la yiraahdo ama lagu magacaabo sequence, oo ah size-kuu yeelan doono videogeena iyo magacuu yeelan doono videogeena. si aan u samaysano, waxaad ku dhufanaysaa calaamadan hoos kaaga muuqata, kadibna qaybta kore ee ku qoran tahay sequence. markaad ku dhufato kadib daaqadan ayaa kuu soo bixi doonto halkan oo ah magacuu yeelan doono videogaaga markaad save garayso. so iyo waxaad marka ugu horeysaad soo gasho, laakiin halkan waxay kugu muuqan doontaa sidan. halkan waa frameyada presetyada kala duwan, hadday noqoto kaamirooyin iyo hadday noqoto waxyaalaha kala duwan. so si aan u doorano midkan ugu habboon, waxaan tagaynaa array, kadibna waan furi doonaa, kadibna waxaan ka dooran doonaa array 30 frame per second, kadibna okay ayaan oran doonaa. waad ujeedaa halkan inuu isbedel ku yimid,
halkan uu isbedel ku yimid. halkan waxaan dhankan kaga muuqda oo ah trackyada. track micnihiisu waxa waaye meeshaad kala soo meeshaad dhigi lahayd fiidiyoyada iyo codadka. so wixii halahan ka sareeyo taas micnaheedu waxay tahay waxaa lagu ogolyahay wixii ah sawir iyo video iyo qoraal inaad la soo geshid. waa ujeedaa inay u taagan tahay v1 video. halkan a1 micnaheedu waa audio, wixii cod ah ayaad kala soo gali doontaa. haddii adigoo wax hagaajinaya uu kugu yaraado trackan, waxaad tagi kartaa halkan, aad right click oran doontaa, kadibna waxaad oran doontaa add track. haddaad doonaynin inaad iska delaydaad doonaysid waxaad oran kartaa delete track. okay, imika waxaan oranaynaa add tracks. kadib wuxuu kugu leeyahay waad magacaabi kartaa. soo ma doonayno, okay aan oranayna. kadib waxaan usoo laaban doonaa folderkii oynu ku jiray waxyaabahan hagaajin lahayn. icon view dheh. halkan waxaa ku jiro videoyo aan kasoo dejiyey qadka iyo logo aan ugu talagalay inaan dul saaro videoga, iyo codod aan doonayo inaan videoga nuxurkiisa ku sameeyo, iyo logo intro wax la yiraahdo oo ah siduu kusoo gali doono ama siduu ku bixi doono logadaada ama siday ku bixi doonto sidaa meelo badanba ka aragtay. so imika waxaan idin tusi doonaa halkan oo ah sourciga waxyaabahay tarto. si muuqaalka uu kugu soo muuqdo halkan, waxaad samayn kartaa inaad double click siisi iyo inaad qaato halkaad geyso. so double click ayaan siin doonaa. saad u jeedo muuqaalkeeni halkan ayuu kasoo muuqday. source clip ama source micnaheeda waxay u taagan tahay haddii video aad doonaysid inaad la soo geshid timeline. timeline waxaa la yiraahdaa halkan aad doonaysid inaad la soo geshid video laakiin videogaaga uu dheer yahay, ama aad doonaysid inaad reebato mid cod ama video hadduu sito mid aad ka reebato, ayaa lagu talagalay inaad ku hagaajiso. tusaale, so halkan ayaad geyn doontaa si aad u daawato videogaaga. kadibna waxaad eegi doontaa meeshaad doonaysid inaad ka jartid ama meeshaad doonaysid inaad ka xirtid iyo meeshaad doonaysid inaad kasoo gelisid videogaaga. so noo soo celi stop. markaad stop graysid waxa la yiraahdaa jiro waxaa jiro wax la yiraahdo mark in iyo mark out oo aad ku haweyn doonto videoga. shortcut ahaantoodana waxaa waaye I iyo O. ayadoo u taagan mark in, odo u taagan mark out. macnahooda waxaa loola jeedaa videoga markaad ka xulanaysid in ka mid ah. tusaale, waxaad doonaysaa dhankan wixii ka dambeeyo inay tirmaan ayaad doonaysaa. waxaad taabanaysaa calaamadda ama I oo u taagan marking. markaad taabato wixii ka dambeeya ayaa lagu soo qaadi doonaa, xul ayaa lagu dhihi doonaa haddana ilaa intee baad doonaysaa. waxaan oran doonaa ilaa iyo inta. kadibna calaamadan ama aad taabanaysaa ama waxaad taabanaysaa O oo kuu soo jari doonaa mark out. marka haddaad doonaysid inaad yaraysid uun aadan doonayn codka uu sito iyo videogaba inaad qaadato, waxaad markaad dul tagto meeshan ayaa left click leedahay, adigoo haya ayaad soo jiidaysaa, aad ku duldaynaysaa timelinekaaga. ama waxaad samayn kartaa haddaad doonaysid codkiisa, calaamadan waxay u taagan tahay videogan doonaya videoga un qaada video weeye. calaamadaasna waxay u taagan tahay waa codkuun baan doonayaa inaan ka qaato. waxaa jira waxyaabo documentiyo oo tusaale oo cod uun ku jiro soo maha. marka intaas ayay la macno tahay. soo imika waxaan doonaynaa videoga inaan wax ka jarno ma doonayno. soo videoga waxaan doonaynaa inuu noo ahaado sidiisii, ma doonayno inaan imika wax ka jarno. soo inoo soo qaad, kadibna waxaa ku duldayn doonaa timelinekeena. markay calaamadan kusoo qabato wuxuu ula jeedaa ilaahay kuma darnaadee ma sequencekaaga horaan kuu daynaa sizekiisa
mise kan cusub videogaaga aan kugu xidhnaa oo kaabaa doonaysaa. So mar walba waxaa wanaagsan inaad kaaga dhaafato. waxaan oran doonaa keep existing setting ama sequence same. markaan orano kadib waxaad arki doontaa in videogaaga iyo sequencekaaga ee isku size ahayn. So waa inaan isku size ka dhignaa. haddaad doonaysid meeshan inaad weynaysato in kugu yartahay inaad aragtid, waxaad samayn kartaa inaad halkan tagta, aad saan u weynayso ama saan aad tiraahdo. So saan inagu daa. kadib haddana marka haddaa balay gareyno waad u jeedaa inay isku size ahayn. haddaan inta ka balay gareynana waad u jeedaa in uu ku jiro zoom in. soo saan ugu qaadno waxaan dul tagaynaa videogeena dhanka timelineka, kadibna waxaan dul tagi doonaa qaybtan ay ku qoran tahay effect control. hadda waxaan fahnay sida loo isticmaalo sourceka, iminkana waxaan fahmi doonaa sidaan u isticmaali lahayn effect controls. koo ku dhufo qaybtan oo ah motion, macnihiisana waa garanaysa dhaqdhaqaaqa. waxaa lagu talagalay position oo ah ma kor baad dhigaysaa, ma hoos baad dhigaysaa, ma gees baad dhigaysaa, ma geeska kale aad dhigaysaa. scale oo loola jeeda cabirka. soo anaga waxaan doonaynaa iminka inaan cabirkiisa naaqosino. waxaan taaban doonaa, waxaan qaban doonaa qaabab badan ayaa jira oo lagu bedelo. tusaale double click haddaa siiso qor ayuu ku dhihi doonaa scalekaa doonayso. haddaan idhaahno 50% I think waa uu la soo facaaday. laakiin haddaad doonaysid waad dul tagaysaa, kadib left clickaa la qabanaysaa, waad ku weyneynaysaa, waadna ku yaraynaysaa. so waa 50%. rotation micnaheedu waxa waaye haddaad doonaysid inaad wareejiso. tusaale waad u jeedaa sidan intee degree baad doonaysaa inaad wareejiso. haddii aadan doonaynin ama aad doonaysid inaad sidiisa hore kusoo ceshitid, waxaad taaban doontaa calaamadan. si automatically ayuu iskugu soo celi doonaa sizeka lagu talagalay sidiisii hore. haddaan scaleka u laabano aan dhahnan sidiis nagu soo celi, waa ujeedaa sidiisa hore default ayuu nagu soo celiyay. soo imika waxaan ka dhigaynaa 50%. dhankan kale opacity micnaheedu waa muuqaalka. heesaha badanaa kuwii hore siba waad aragtaa inuu muuqaal kasoo dhexbaxay iyo waxaas. ilaa hadda waa la adeegsadaa. so waxaa la sameeyaa opacityga ayaa loo yareeyaa. opacityga haddaa yareyno videogan siduu noqonayo aad u jeedaan. so opacitygiis ma taabanayna iminka, boqolkiisa ayaan ku daynaynaa. iminka waxaan soo gishan doonaa videoyadii xigay. waxaa kaloo aad ku soo gishan kartaa timelineka adigoo sameynayo drag and drop. waad soo jiidaysaa timelineka keenaysa, ku duldaynaysaa. sababtoo ah haddaadan doonayn qasab ma ah inaad sourceka tagto. haddaadan doonayn inuu waxba ka bedelmo videogaaga size videogaaga daqiiqadihiisa, codkiisa, waxa inuu kala haro. haddaadan doonayn drag and drop aad samaynaysaa oo soo meeshuu soo galayaa. dariiqadaasna waa la isticmaalaa. iminka waan boobsiinaynaa isla sidii aan sameynaynaa, drag and drop ayaan sameynaynaa. muuqaaladii ayaan soo gashan doonaa. markii aan la soo galnay videoyadii, codkii, background codkii, dhammaantooda markaan la soo galnay kadib, waxaan idin tusi doonaa qaabkeed u jarjari doontaa. waad u jeedaa codkan isticmaali doono iyo muusigada iyo videoska inay ka badan yihiin, inay isla sineen. so saad iskula sinto waxaan dul tagaynaa
videogan labaad videogan koowaad waan naaqusin doono. saad u naaqusiso waxaad samayn kartaa inaad geeskiisa dul tagto ayaad left click la qaban kartaa, waad jiidi kartaa, ama waxaad samayn kartaa kan usoo yara dhawey. waxaad samayn kartaa inaad tagto halkan aad browser toolka ka soo qaadato, inaad dul tagto ayaad waxaad samayn kartaa waad jari kartaa. so waan jaraynaa imika halkan. waad u jeedaa labadaas step ayaad videoga ku yarayn kartaa. imika videoga inoogu dheeraan anagoo marayna stepkaas ayaan waxaan samayn doonaa inaan videoyadan iyo cododka isla soo sinno. hadda waan isla soo simay dhammaan videoska iyo codka aan isticmaali doono. waxaan doonayaa inaan ku tuso. haddaad doonaysid tusaale in adiga barnaamij badan saan oo kale markuu iska daba xigo aad doonaysid barnaamijka adigu waxaweynayo markuu firaaq yar kaa dhex galo sidaan oo kale, waxaad samayn kartaa inaad right click tirahdid kadib aad taabtid repeatedly si automatically ay usoo galayaa. sidaa ayaad u isticmaali doontaa. imika dhammaantooda ayaan xulan doonaa kadibna waxaad kusoo dhejin doontaa. haddii waxaan doonaynaa inaan logo introgeena ama outrogeena aan la simno codkan soo qabanayna meeshuu ka egyahay kan ayaan ku ekeen doonaa. videoiska dhammaan iyo sequencekeena waa ay kala duwan yihiin. saan isla simno waxaanu isticmaali doonaa effect controlska noo soo xul sidii hadaayay oo kale. imika kan waxaad tiraahdaa boqolkiiba konton oo kan minus ma ahan ewa plus boqol iyo 68 still waaye. I think halahan boqolkiiba 91 ayaan ka dhignay. kan kala noo soo xul haddana saad u aragto waa inaad dul tagtaa kadib kan isagana plus waaye. kan boqolkiiba 92 hataa waan oran karnaa boqolkiiba 97. isla dariiqadii ayaan mari doonaa. videogan iyo sequencekeena waa is yeesheen oo waa isku mid. imika videogeena ayaan la ekeysiin doonaa loogadeena. sidaad u jeedo loogadeena iyo video sequencekeena maahan kuwa isku saaysan. loogada waxaan ka dhigaynaa boqolkiiba 20 nirahno waa ay weyn tahay weli. waxaan oran doonaa 10 ama 8 weli waa ay weyn tahay 4. meeshaas waxaan xulan doonaa 4. waxa ila qurux badan 6. imika waa alright. saad u isticmaasho kan waxaad ka isticmaali kartaa halkan waxaan dooranay videoga loogada waxaan ka isticmaali kartaa positionka adoo dhanka ujeedaya dhanka ujeedaya, ama waxaad samayn kartaa inaad dul tagto double click c kadib sidaana kugu double click c kadib sidaana kugu soo qabanayaa. kadib saareyno kuma dhejinayno geeskana kuma dhejinayno
halkaa ayaan ugu tagaynaa loogadeena. waxay qurux badan tahay weliba inaan ka dhigno 5 imika alright. so haddii isla daawano coronavirus ama covid-19 waa cudur dilaa ah dadkeena badanaa waa ay dhayalsadaan. waa waxa siyaadiyey bukaanada la ildaran ama la imika lama dhageysan karo videogina sababtoo ah codkii waxaa ka sareeya background music ama background sound wax loo yaqaan. so saan ula simno ama aan ugu naaqusino waxaan xulanaynaa backgroundka musiga kadibna halkan ay ku qoran tahay value ayaan naaqusinaynaa. geeriyooda cudurkan covid-19. si aad isku dhowrto raac tallaabooyinka ay bixiso wasaaradda caafimaadka. ka fikir caafimaadkaaga, kan qoyskaaga, ehelkaaga iyo deriskaaga. volume levelku waxaan ka dhignay 13.8 waxay ku xiran tahay levelku codkaaga taagan yahay iyo sida doonaysid in loo maqlo. imika halka ayaan ku dhaafaynaa waxaan galaynaa imika volume levelka halka ayaan ku dayn doonaa. so waxaan sidee baa qoraal ugu soo darsan kartaa. saad qoraal ugu soo darsatid waxaan tagi doonaa qaybtan ay ku qoran tahay type tool ama t hadda taa shortcutkiisa kugu soo qaban doono. videoga ayaan dul tagi doonaa. videoga halka doonaysid inaad wax kaga soo qorto ayaan dul tagi doonaa. kadibna waxaan oran doonaa right click left click kadibna waxaan ku qoran doonaa shortcut caafimaadaan ku qoran doonaa. kadibna halkaan ku dhaafin doonaa. videogan inuu bedel caafimaadaan ku dhaafi doonaa oo waxaan la facaysiin doonaa videoga. waxaan doonaynaa inaan center ka dhigno opacitygiisana aan yareyno. so saad u maamusho farta kalarkeeda nooceeda qoraalka saad u maamusho waxaan tagi doonaa qaybtan ay ku qoran tahay graphics. so imika waxaan tagi doonaa qaybta graphics. markaa tagno kadib waxaan ku dhufan doonaa qaybtan ay ku qoran tahay edit. kadibna textka waa inuu dooran yahay. hadduu ku doornan uu sidaan yahay waxaad ku dul dhufan doontaa textkaaga caafimaad ay ku qoran tahay. kadib waa uu ku xulmi doonaa. saad farta u bedesho meeshan fill ay ku qoran tahay double click siin doontaa. markaad double click siiso fillka kalarkaad u yeeli doonto ayaad meesha ku cadaynaysaa. so aniga waxaan doonaynaa inuu ahaado cadaanka. farta halkan ayaa laga bedelaa fartaad doonaysid inaad u yeeshid. imika ka ayaan ku daynaynaa regular iyo bold keebaa doonaysaa inuu noqdo, inuu weynaado iyo inuu mid caata ah noqdo. so qaybtan stroke ayaan double click siin doonaa. waan u fasaxi doonaa stroke kadibna double click ayaan siin doonaa. markaan siino double click waxaan usoo doori doonaa kalarka madow. markaan usoo doorno kalarka madow saan opacity kalarka farta saan u qafiifino opacitygeeda waxaan taaban doonaa halkan ayaan ka nusqaamin doonaa. so imika waa si aad mid loo arkayo dheer saana doonaynaa. so imika ma doonayno kan tusaale ahaan kugu tusaayo haddaad doonayso stroga soo isticmaali kartaa. so aniga hadda ma doonayno marka maadaama doonayn waan ka xiraynaa stroga. sidan ayuu muuqan doonaa marka si nusqaami. waxaan doonayaa inuu meel fog as watermark ahaan loo arko. imika waxaan isticmaalaynaa alignment waxaan la sameynaa dhaxda
vertical ahaan, horizontal ahaan dhaxda ayaa la sameynaa, vertical ahaan dhaxda ayaa la sameynaa. So meeshaas ayaan ku dhaafi doonaa iminka kan. Marka graphicskan qaybtan waxaa lagu talagalay farta inaad ku haweysid. waxaa jirto kuwa barnaamijka lagu keeno hadday noqoto sad u daabato animationadooda waa dul tagaysaa sidan muuskaaga adoo hoos u wadaayo farooyin kala duwan ayaa jiro oo kugu soo muuqan doona subtitles. imika waxaan isticmaali doonaa ball coming up fartaan la yiraahdo. saad u isticmaasho waxaad sameynaysaa inaad soo qabatid, aad halkan ku daysid. so halkan ku daa. okay dheh. markaan niraahno waan xulanaynaa. markaan xulano kadib qaybtan ay ku qoran tahay ball coming up ayaan magaca ka bedeli doonaa. saan magaca ugu bedelno waxaan ku qoraynaa fariin caafimaad. so markaan ku qorno fariin caafimaad inoo soo qabo selection toolkeena kadib bal daawo siday noqoto. waad ka bedeli kartaa farta waxaad ugu bedeli kartaa markaad dul tagto fariin caafimaad isla qaabkii hadda aad u maraysa haddaad doonaysid inaad farta ka bedesho. so imika waan daawan doonaa videogeena. coronavirus ama covid-19 waa cudur dilaa ah. dadkeena badanaa waa ay dhayalsadaan. waa waxa kuwo fara badan oo aad iyo aad u kala duwan ayaad ka heli kartaa dhankan oo maxaa la essential graphicska hadday noqoto subtitles. so imika waxaan dooran doonaa ama aan goobi doonaa mid yaroo subtitle ah. badanaa waa lagu keenaa inta badanna anaa soo browse gareeyay. so imika waxaan xulanaynaa midkan aan doonayno cidda videogan codaynaysa ama videogan inaan wax ugu cadeyno. so okay oro stepska hadda ayaan mari doonaa. bal imika haddaan daawan covid-19 si aad isku doorto raac talaabooyinka ay bixiso wasaaradda caafimaadka. ka fikir caafimaadkaaga kan so imika waan gabagabaynay videogeena oo waan qurxinay. haddaad doonaysid wax documentary oo kale haddaad haweynaysid in kamid aad doonaysid trailer ahaan inaad ka dhigtid aad in kamid export garaysid adoo videoga wada habeysay sidii hadday mark out waxaad samayn doontaa halkaana imaan doontaa program viewga kadib halka videoga waxaad dhahi doontaa aad export garayna halka ha ka bilaabo kadibna xoogaa ayaa socon doontaa waxaad dhihi doontaa tusaale halkan ha ku dhamaado. so badanaa iska hubi inuu isagoo dhammaystiran ku saaran yahay videoga saad u export garayso ama aad u isticmaasho videoga. waxaan tegi doonaa qaybtan ay ku qorantaa file kadibna qaybtan hoose export kadibna media. markaan click siino media daaqad noocan ayaa kusoo bixi doonta oo ah daaqadii ama sanduuqii aad kala bixi lahayd videogaaga. so halkan ay ku qoran tahay formatka waa inaad ka dhigtaa h.264
H264 markaad formaatkaa bedeshid kadib waxaa ku dhufanaysaa presetka waxaad dooranaysaa qualityga doonaysid inuu videogaaga hadaad doonaysid mobile device high quality ahaan match source 4K dhammaan waxyaabo badan oo kala duwan ayaa ku jira halkan. So iminka waxaan doonaynaa inaan doorano high quality oo ah 720 oo HD ah full HD. haddaad doonaysid full HD waad dooran kartaa. iminka waxaan dooranaynaa HD. So markaan doorano kadib halkan macnaheedu waxay tahay waxaan doonayaa inaan Premiere Pro-ga kasii shaqaysto. So videogan export garay laakiin haddaad taawada qaybtan export ee ku qoran tahay macnaheedu waxay tahay waan ka dhamaaday oo ma doonayay inaan Premiere Pro isticmaalay export garay. sababtoo ah haddaad export taawatid Premiere Pro ma sii isticmaali doontid ilaa iyo uu videogan ka dhameeyo exportka. laakiin haddaad taawadid calaamadan macnaheedu waxay tahay horaan ugu sii shaqaynsan doonaa. So anaga ma doonayna iminka waxaan taaban doonaa no export garay. waxaan isku soo laaban doonaa insha Allah markuu inoo export garaysmo. iminka videogeeni waa uu export garaysmay. saad u raadiso dhankan waxaad qori doontaa magaca videogaaga uu leeyahay. saad u jeedidba videogeena waa uu export garaysmay wuxuuna galay halkan. markaad isticmaalaysid siba Premiere Pro ama Adobe After Effects sikimanka yar aad isticmaalaysid ama daqiiqadooyinka ayaa waxay yeelan doonaa size aad iyo aad u xaddi badan isagoo videoga uu yaryahay. marka si quality-ga videoga uu kaaga lumin oona MB-yo yar ama GB-yo ay kaaga qaadato. tusaale markaad isticmaalaysid After Effects-ka markaad isticmaalaysid 10 second ayuu wuxuu ku leeyahay 10 second ayuu wuxuu ku leeyahay waa 3 GB 4 GB. marka waxaa jira application aan quality-ga ka yareynaynin mooye size-ka. saan u soo degsano waxaan tagaynaa Chrome-ka kadib waxaan qoraynaa Handbrake. marka qorta Handbrake download page-ka ugu horeeya ku soo baxo oo handbrake.fr ayaan ku dhufan doonaa. saad u soo degsato application-ka waxaad ku dhufan doontaa window haddaad isticmaalayso. marka haddaad isticmaalayso everyone window ayaan ku dhufan doonaa. sidii hore oo kale haddaad isticmaalayso IDM Internal Download Manager si automatically ayuu kugu soo degi doonaa halkan. haddii aadan isticmaalayn halkan ayuu kuga soo muuqan doonaa sida tusaale oo halkan geeska nagu soo muujiyo application-ka. so iminka ma doonino uu nagu jiraa. waxaan soo kicinaynaa application-ka. markuu application-ka soo kaco sidan ayuu kugu soo muuqan doonaa. waxaan dul tagi doonaa videogeena folderku ku jiray deetana waxaan samaynaynaa drop and drag inta ayaan ku paste gareyn doonaa. markaan samayno kadib videogeena ayaa halkan ka soo muuqan doona deetana waxaan ku dhufan doonaa meeshan ay ku qoran tahay video san size-kiisa u xadidno. so ilaa inta waa macquul ilaa inta size-kiisa waa macquul. so uu noogu yareeyo size-ka waxaan taawanaynaa start encode kadibna waxaad sugaysaa ilaa dhankan uu ka dhammaynayo. markuu ku dhameeyay kadib waxaan hilmaamay halkan oo ah intaadan start encode oran halkan oo ah meeshaad dhigan doonto videogaaga aad ka xulan doontaa. markaad save tiraahdo wuxuu leeyahay videogaaga wuu ku export gareysaya. markaad save tiraahdo kadib ayaad start encode dhehaysaa kadibna waa uu ku export gareysmay. iminka waxaan isla soo barbar dhigi doonaa videogii hadaayay iyo kan hadda. haddaan eegno iminka midkan oo ah 36 second size-kiisuna uu yahay 45.6 MB. isla midkan size-kiisa waa 6 MB waana isla sekimo. haddii loo fiiriyo videoga coronavirus ama
deriskaaga oo raac tallaabooyinka ay bixiso wasaaradda caafimaadka. kala soo bilay gareynana corona si aad isku doorto raac tallaabooyinka ay bixiso wasaaradda caafimaadka. inuu wax different lahayn. inta aan ku kulmi doono videoga xiga, nabad bashbash iyo barwaaqo ayaan kaaga tagay. coronavirus ama covid-19 waa cudur dilaa ah. dadkeena badanaa waa ay dhayalsadaan. waa waxa siyaadiyey bukaanada la ildaran ama la geeriyooda cudurkan covid-19. si aad isku doorto raac tallaabooyinka ay bixiso wasaaradda caafimaadka. ka fikir caafimaadkaaga, kan qoyskaaga, ehelkaaga iyo deriskaaga.